إن الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أحييكم بالتحية الإسلامي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية هل كان واحد اسكون من مانتا مشروع كصعداء مسجد أبو هريرة وسأكتهم بأيامه الدنبا يرواب كدنبا وداء يوردن بمساجد كأقدوميين oo maaragtay abiyay fariisteen oo jamaacadii iyo meelihii laga soo galayay cibaadadii oo dhan ay khalkhal galiyeen ayaan maanta isku nimid mashruucii maaragtay gudagalkiisa ayaan ku dhex jirnaa iyo maxaan ku dhahay bilowgiisii iyo maxaan ku dhahay qaabkii loo habeyn lahaa insha Allah taala halkan waxaan ku wada taaganahay dhammaan masaajidka gudigiisii iyo odayaashiisii iyo xaafadii iyo injineeradii iyo maxaan ku dhahay dadkii shaqada waday dhammaan hurmuudkii oo dhan baan halkan ku wada joognaa oo xitaa dadkii sarfeenka gobolka u qaabilsanaa biyo saarka oo dhan ayaa la joognaa insha Allah taala halkan marka maanta waxaan rabnaa inaan clipkan kaga qabanayna inaan xogtaas insha Allah taala warbixinteeda iyo faahfaahinteeda aan soo gudbino aad baad mahadsantahay haddana waxaan ku wareejinayaa haddii aan la yiraahdo maxaan ku dhahay injineerka ayaan ku wareejinayaa oo ka socda dhanka dawladda insha Allah taala bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan joognaa masaajidkii Abu Hurayra oo biyuhu ay wadooyinka ka xireen gaalkacyo baan joognaa الحمد لله رب العالمين ما هذا سلاحي بأسكاله علومدي إيو دولتي إيو محوها دتك بوشدي ماشي دقنيد لما أنتود حيو منايين مساجد كاس سيدي لو قلت كلها ودوينك لوصو مري لها ماشي لقصو قلي لها الحمد لله ما أنتو إلهي نوافجينا لما نسكوي مادو وحكا لو جيرو masaajidka wuxuu yeelanayaa biyo ka saar kanaal biyuhu qaado ka soo bilaabanayo laamiga shirkadda goolis horteeda ka soo bilaabanayo masaajidka la wareegayo kadibna wado walba oo masaajidka ku beegan oo biyuhu ka soo gali jireen ama biyuhu ku imaan jireen channelkaas biyaha inay ku dhacaan baan rabnaa haddii ilaahay ogolaado biyahaasi waxay tegayaan inji bay hormarayaan laamiga weyn bay la leexanayaan waxay ku leexanayaan wadda xaafadda gasho oo waxayna tegayaan obek stoorada baqaarada obek kaydka obek bay biyuhu tegayaan kaydka obek markay biyahaasi tagaan kanaal kaloo waxaa jira isna ka imaanayo amal group oo biyaha qaadi doono oo geynayo hotel Ceylan ka leexanayo hotel Shaariqa kasii leexanayo hotel Ceylan waran cafeteria mari doono waa kii hore biyaha loogu qaadi jiray biyahaasna waxay tagi doonaan cirjiif tagi doonaan insha Allah haddii ilaahay ogolaado waxa kaloo jiro masaajidku wuxuu u baahan yahay dhul uu leeyahay jiro interlog la dhigayo interlogaas cabirkiisu dhulkaas wuxuu dhan yahay 2600 متر سكوير weeye waxa kaloo jiro intaan la dhigin ka hor arkaa waxa la dhigayaa dhulka masaajidka uu leeyahay iyo wadada hormartaba arkaa waa la dhigayaa arkaawadu waxay ku kacaysaa qarash dhan 10000 interlogana wuxuu ku kacayaa 46800 total good waxay isku noqonaysaa 56800 oo dollar sidaasaan rajaynaynaa insha Allah waxaan u baahannahay ilaahay inuu noo fududeeyo xilli roobaadkii waa la joogaa intaan roobku imaaninna in channelada iyo interlogyada iyo wadooyinkaas laga shaqeeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay una fiican tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta ay taariikhdu tahay 12kii bishii Abriil 2026 waxaan joognaa masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Kalkacyo gudigii masaajidka iyo culumadii iyo injineerkii degmada iyo dhammaan jamaacadii masaajidka waxaan joognaa masaajid Abu Hurayra waxa laga shaqeynayay maalmahan oo dhan barxadda masaajidka Abu Hurayra sidii biyaha looga saari lahaa Ilaahay subxaanahu qaadirka waa noo fududeeyay alxamdulillah waxa la soo wareejiyay dhulkii masaajidku lahaa oo 40 ah dhismihiisa meel fiican buu marayaa hadda gabagabo ku jira masaajidku iyo Kalkacyaba waxay ayaantan la daalaa dhacsay wax la yiraahdo biyo fariisad biyahaasi marka masaajidka barxadiisa oo dhan waa biyo fariisad bay noqotay sanadkii dhaweyd masaajidka jamaacadu waxay
ku tilaabsanayeen bulkeetigaas oo loo dhigay dhagaxa jaajuurka ah ereyadan hadda aan taagannahay oo dhan waxaa fadhiyay biyaha marka alxamdulillaah waxaa la isla qaatay dhulkii masaajidkana in la soo xiro oo dhismaha laga sameeyo ka bacdi la carrakaaweeyo ka bacdi markii la carrakaaweeyo interlooga la dhigo interlooga markii la dhigo biyaha masaajidka waa ka tegayaan sida injineerku u sharxay biyahaasi kanaalka loo sameeyay siduu u sii wado wuxuu geynayaa magaalada banaankeeda Cirjiifa haddii lahayn shaqada hadda masaajidka laga qabanayo waxay noqonaysaa xal waara oo aan masaajidka haddii lahayn dib ugu soo noqonayn kharashka waa sida injineerku u sheegay cabirka masaajidku isku celcelis masaajidka oo dhan markii la isku soo wareejiyay haddaan kala qaado labadan boosoo hadda aan joogno iyo wadadiisu waxay noqotay 2100 mitir square masaajidka dhinaciisa bariga iyo manaaradda iyo intaasna waxay noqotay 500 oo mitir square isku celis cabirka masaajidku wuxuu noqday 2600 oo mitir square interlooga galaya mitirkii 18 markii lagu dhuftay wuxuu noqday 46800 buu noqday carrakaawada kharashkeeduna wuxuu noqday 10000 lacagtaas wadarta guud markii la isu geeyay waa 56800 waa la kala qaadi karaa lacagtaas oo laba fees waa laga dhigi karaayo bar hadda aan joogno 36800 bay noqotay markii cabirka 500 laga reebo oo carrakaawadeeda iyo interloogeeda la qaato haddii la isku darana waa 56800 insha Allah waxaan rajaynayaa ilaahay inuu dad islaamaynu nahay ilaahay inuu aqbalo ducadeena oo kharashkaas maanta aan u baahannahay 56800 oo masaajidka Abu Hurayra laguna dayactirayo biyahana looga saarayo barxadiisana lagu qurxinayo xal waarana looga helayo oo masaajidkaas biyo aysan dib ugu soo noqon ilaahay inuu noo fududeeyo oo islaamka dadka islaamka ah codka yagaan gaaraya iyo inta islaamahona maqashaaba ay insha Allah ka daqan doonto masaajidka Abu Hurayra oo dhaqaalahaas ay nala caawin doonaan haddii lahayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii aan dhaafay odayaasha iyo culimada iyo guddiga masaajidka ku daraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا اسكو إماتك يجعل جماعة مسجدك إنشيرة خيارته اسكو تيمين هي أنت مسلم قائم مغلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة إلهي بانكم هذين إن سوقا يكين بيت كيسان إن أنه قرينا أفعتك يجا وقتك يجا أن قلنا نوجو إرساق إلهي سواء كم هذا علينا وحن كلام هذا علينا وندعو عينينا ما موينك مساجد كان أصل كيسو بالله إلى ما أنتم نتشوفنا وقت جود مال كودي مسكح قلنا يوم حاليا هاي إنسان كحسنات الله يدين صاروا ما تقابلنا الله ينكسيو كولا لك نارتي جهنم الله ينكجع قبوجيو لنا ينكجع مرشوق أنت كبعدي شغلان والله شيء أنت كمان يسوع عدد كائلات هاي هي وقت كائل لو كمان يو هي نوع الله كمان يو والله شر إلهي ما يك جارت ركبك سو شقي وحن مركا قدر سنينا ما دام ودياش مساجد كانوا نهاي وجودك كاها الله وأنت أنو كل النهاي إن أنو أديجنو أو سوى فقصن شغالة أو قافطة ونادر كانوا كنهاي وأنو ورنا إلهي وأنو ورنا هيدا كان محسنين تمسد كاي وشغالة وقفضي بان إلهي كجا عشر مريسانينا وحان مركا كعد سنينا محسنين تا ما موين كيال ما هذا لنا يهل كودي أنت كلام كوه حيران يدا تكلام معرفتي عد كنو جاري دونه إن شغالة أصل كاس هو قيمي قدر كان لعقته وهذا أدوك هو إسكا لبدأ هي دون لوفر شترى بدل لكن هذه لوفر وح أي آخرك ترسي وح الوقت من يومنا جودة إسكا أرو رئيسه إن شاء الله ونلاك عاويه مسجد كالوصو عاويه لو وقفضه صدقة الجارية ويا إلى قيام هاي إن شاء الله وحرجين أسعة تدكاس إلى هاي مارتي لبحة وحنقول لنا هاي إلهي هايدين فوضيو برحضان إن شاء الله وحنا نقول إسلام ماشي يد اللي قلت كلها قالوا ويرتها ما لما أنا لقيت كذا لقى بحنا ويفكتها لكم بعديه
waxaan u diyaarinaynaa insha allah haddii ilaahay in ciidda lagu tukado oo aan masallahaas markii la hagaajiyo baalka la dhigo marka xilliga la gaaro intii la mayro la diyaariyo aanu ilaahay insha allah dadka lagu tujiyo wixii kaloo hawlahoo lagu qabsanaya muxaadaraadka iyo nadwaadka dibadda lagu qabanayana lagu qabto masjidkana ay baakiniyo u noqoto iyo xifdi marka insha allah waa qayb ka mida weeye waa sadaqadii masjidka jaariyada ahayd ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu noona soo fududeeyo walaalaha muxsiniinta qalbigooda iyo maskaxdooda uu ku rido inay nala fududeeyaan annaguna insha allah waxaan ilaahay hortii la tagay doonaa inaanu si daacada uga shaqayno ilaalino gaardiyeyno wixii naloo dhiibana sida ay tahay aan u gelino kuna xifdino insha allah haddii ilaahay iskagana dardaaranno nimanku ka dambeeyo dadku wada noolaan maya masjidka intuu dhisanaa waa la soo hayay haddana waan sii hayn doonaa haddii ilaahay idmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dadka walaalaha muxsiniinta meel ay joogaanba iyo kuweenaama ilaahay khayr hana siiyo dunuubteena allaha dhaafo waxa aan qabanayna camalkaana ilaahay maaragtay عمل مقبول هالنوغدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta taariikhdu tahay 12 bisha afraad waxaan hortaaganahay masaajidka Abu Hurayra masaajidka dambena barxadiisa tan oo u dhiganta 4 boos iyo bar waxa weeye kharashka lagu dayactirayo oo biyaha looga saarayo 3 meelood weeye meel waxa weeyaan waa xifdiga masaajidka ay ahaydo waa deyrka yarka ah oo waa la dhameeyay wixii ka sii dhimanna insha Allah waa la dayactiraya meelina waa carrakaawada leebelka dhulka korta loogu qaadayo waa sida idin sheegeen xagga injineernimada dadka totalka xisaabay baa inoo sheegayo oo waa sida 10 kun ugu sheegeen meelina waa interloga ama dariiqyada masaajidka ha noqoto ama meeshaan 4 boos iyo barka ha noqoto meelna waa interloga waxa weeyaan waa sida injineeradu ayagana injineerada ku shaqo leh laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa sadaqa jaariya qofkii islaam oo wax la baxaya inuu masaajidkaas musaacido u baahan yahay oo musaacidatul islaam u baahan yahay oo mid ummadoo dhan barxadaasi waxa weeyaan hadii biyuhu fariistaan muntanfac ma noqonayso marka dadka islaamka ah oo ehlu khayrka ah waxaan ka codsanaynaa saddexdaas qaybood qaybi waa tagtay oo waa wareeg qaybina waa carrakaawada qaybina waa interloga qof walba tabartiis wuxuu kaga saad qaadan karo sadaqatul jaariga asagay u taalaa laakiin codsiga iyagu waxa weeyaan hadba siday u kala sarreyso marka ugu horeysa haddii la heli karayo in inta barxadda bal interloga la dhigo oo la kala dambaysiiyo haddii kaloo la wada heli karana khayr allaha siiyo ciddii awoodda waxaan intaas ku koobaynaa masaajidkan dee ciddii wax la baxdo oo sadaqad waalid ama wala baxdo ayagay wax tarayaan wabilaahi towfiiq maanta bishu waa 12 waxaan joognaa masjidkii ku yaalay magaalada Gaalkacyo Abu Hurayra waxaan u nimid annaga iyo guddiga iyo muxsiniinta islaamka ah oo ka shaqaynaysay wixii laga qaban karo masaajidkaas inaanu ka qabanno ilaahay idankiis hadda waxaa dhismay darbigii la wareejinayay waa u soo koobmay waxaa ku xiga carrakaawadii la dhigayay carrakaawadiina sidaas aad u muuqataan intii ugu horreysay waa lagu bilaabay wax hadalahoo hadda maaragtay wax noo dhammaystirmayna ma aha laakiin markay noo dhammaystiranto insha allahu ilaahay waa dhammaynayaa waa ka hadlaynaa dhulku 50 mitir 40 iyo 10 mitir oo gaar ah ayuu tiradiisu dhan tahay dhulkaas waxaa la rabaa in la nadaamiyo oo interlog la dhigo oo ciidda lagu tukado oo salaadaha haddii masaajidku buuxsamo lagu tukado ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa wuxuuse u baahan yahay shaqadaas waxaa laga sugayaa dadka muxsiniinta ah oo islaamka ah oo ilaahayna wax siiyey aakhiradoodana wax geysanaya waxaan rajaynaynaa in ilaahay iyagana ka soo qaado masaajidkana uu ku sharfo oo haddii ilaahay kuu roon yahay lagu hagaajiyo waxaa jira dhul dambe oo masaajidka dhinacyadiisa dambe ah oo aan weli la gaarin laakiin interloga in la geliyo la dhigo la go'aansaday waa 500 oo mitir dhulka waxa ku baxaya
konton iyo dhowr kun oo doolar weeye lacagtaas konton iyo dhowrka ah annagu gacanta kuma hayno laakiin muslimka iyo muxsiniinta baa la weydiinayaa ilaahay ha ka soo fududeeyo aakhiradooda iyo islaamnimadoodana allaha khayr uga dhigo intaa waxaa ka dhiman gabdhaha masaajidkaa dhisay oo islaamka ah ilaahay caafimaad sareec ah iyo cimri dheer ba ha siiyo intaa waxaa noo dheer faatixadaan u marayna si jamac ah in ilaahay khayr badan caafimaad badan cimri wanaagsan cibaado suuban uu siiyo waxaan leenahay marka dhulkaa waxaa la rabaa in laga qabto hawshaas gabdhahaasuna inaysan hadda lacag ku filan hayn baan malaynaynaa dadka muxsiniinta ah oo carrada Soomaaliya ku nool ama dibadda ku nool waxaan rabnaa arrintaas sida ay tahay inay uga qayb qaataan annaguna wixii naga soo gaara oo aan wax kaga naloo keeno inaan wax kaga qabanno oo isaytax uga qabanno xooggayaga iyo caqligayaga iyo taladayadana aanu ku saacidno waxaan leenahay hadalkii waa badinay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay gabdhaheenna ha inoo caafiyo ilaahu caafi